afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun oo la hadlay telefishinka sahan ayaa waxa uu ka hadlay ardayda dugsiyada salaama iyo waliba nuuraddiin oo muddooyinkii u dambeeyey cabanayay dhacdooyinka soo noqnoqonaya dugsiyada gaarka loo leeyahay ardayda ka imanaya waxay tahay runtii lafjab weyn ay ku tahay dowladnimadeena iyo dadkeena iyo ilbaxnimadeena waxaanay muujinaysaa fashilka iyo foolxumada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka taagan hoggaankeeda gaar ahaan ugu horreyn xisbi ahaan waxaan ugu baaqaynaa ardayda wax dhigata inay isdejiyaan inaana ficilo noocana mar dambe ayna samaynin sababtaan saa u leenahay waxa weeyaan marxalad buu dalku gelayaa doorasho waxa somalilan ay kaga suntan tahay dunidana waa nabadgelyada marka wixii tabashaaya ardaydu ay dareemaan ama iskuul dawliya ha noqoto ama ku gaar loo leeyahay ha noqotee mar kastaba mudnaanta waxay yeelanayaan nabadgelyada inay sifo sharci u maraan oona mar dambe falqalalaasan noocana oo foolxumiya dhaawac ku ah dadnimadeena iyo ilbaxnimadeena iyo aqoonteennaba ayna samaynin afhayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan master toorna ku eedeeyey in uu shaqada wasaaraddaasi ku fashilmay wasiirkii wasaaradda loo dhiibay madaxda ka ahaa ayaa fashila oo dee lama arag anugu waxaan kala garan layahay wasiirku ma wasiirkii waxbarashada habdhaqankii wasiirka waxbarashadu lahaan jiray ee wasaarad lagu hagi jiray ee siyaasadda xukuumadda lagu fulin jiray wasiirkan hadda jooga kama muuqato sidii uu kaari gawaadho kareenaya yahay buu subax kastaba intuu meel soo istaago go'aamo jeebkiisa uu kala soo baxay marka de go'aan xukumihii dhacayo waa inuu de waqti qaataa oo laga baaraandegaa oo sida loo fulinayo la eegaa oo waqtigu fulaya la eegaa oo uu noqdaa go'aan guddi iyo wasaaraddu isla soo gaadheen laakiin inuu jeebka kala soo baxo yidhahda maantana tan baa la samaynaya berrina tan baa la samaynaya saa dambana tan baa la samaynaya de waa kind of dictatorshipnimo maaha hogaamin maaha shalay tole markuu hadlayey wuxuu loo dul qaadan maayo in ardayda iskuullada barafadka wax ku barataa 45 arday wax ka badan iyo qol ay fadhiyaan 45 arday wax ka badan inay qol fadhiyaan hadduu og yahay muxuu ugu daawanay 3 sanadood buu siirahay soomaha mas'uuliyad darre isagu uu sameeyay caafimaadka marka loo eego coronavirus marka loo eego monitoring evaluation-kii wasaaraddu lahayd doorkii kormeerka ee iskuullada waxbarashada ayaan jiray markuu leeyahay meesha waa la isku dulmaa oo dulmiga loo dul qaadan maayo hadduu wasiirku ogeeyo inuu dulmi jiro oo ardayda tacaddu ku dhacayo oo maamulka kaga dhacayo muxuu uga qaban waayay marjaca loo noqonayo isagu ahay su-aasha meesha layga wataa haddayna san jirin soomaha inuu isagu fowdo kala abuurayo macallimiintii iyo ardaydii uu iska horkeenayo oo dembi kale ku mudho oo xaq uma laha macallimiinta dugsiyadaasi intay dacwad furtaan inay soo ashkateeyaan qodobka saddexaad waxaa muuqatay iskuulladii dowladdu inay tayo beelaan macallimiintii tayada lahayd maxay tahay dadkii dhaqaalaha haystay ee doonayeen inay ardaydooda wax baraan wuxuuba private schoolskiina isugu tageen wana siyaasad xumada runtii dee wasaaradda ka tahay ila madaxweynuhu isagu wakiishay qoysaska maanta guri kastaba 10 ciyaalaa jooga waxaa laga yaabaa aabbaha dakhligiisa ama hooyo dakhligeedu koobay inaan waxbarashadii tacliintii dhaqaalaha laga dhigay aanay qaadi karin in lagu kala hoobtaba ay dugsiyada dawladda la tayeeyaba oo dugsiyadii dawladda oo garoomadii kubadda lagu ciyaarayay oo dhismihii maxay tahay ayna cid dhex joog siyaasad ahaanna waa fool xumo marka waxa muuqata wasiirkii inuu ku haftay miisaankii iyo macnihii iyo martabadii wasaaraddu ay ugu fadhiday dalka barkhad jaamac batuun oo la hadlaya madaxweynaha somalilan waxa uu yidhi madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne marxalad doorasho dalku galaya fowdo iyo qalalaaso looma baahna awoodda dhalinyaradu hadday kacdana cid xakamayn karaysa ma jirto wasaaraddii aad mas-uuliyaddeeda dadka aad u dhiibtay gaar ahaan wasiirka aad u dhiibtay waa faashi wasaaradda oo dhan anugu badhinan dad aqoon-yahanaa baa jooga agaasimayaal baa jooga waaxido aqoon leh agaasimaha guud oo kale nin aqoon-yahana oo edeb leh oo hawsha wadi karaya weeyaan laakiin waxa baabaa hogaamintii wasiirka intaa in ka dambaysa haddii hargeysa dhaafto gobolladay gaaraysa inta in ka dambayso oo la qaadi karaya ma jirto marka waxaanu leenahay madaxweyne tallaabo degdega ninka wasiirka ka qaad ee ku fashilmay hogaamintii wasaaradda ugu dambeyntiina waxaan ugu baaqayaa macallimiinta dugsiyada gaarka iyo maamulkoodaba ardayda wax tabanaysa inay la saaxiibaan inay duruuftooda hoos u eegaan
inaan iyagiyo ardadooda loo kala warbixiyo in baahiyaha ay ardadaasi ka cabanayso ay eegaan ardayduna inay macallimiinta gartaan inay waalidiintooda tahay inay xaq ku leeyihiin inay dugsiyadooda ayna jijabin inaanay dhib u geysanin inay hawshoodana iyagu gaar u xallistaan ugu dambayntii afayeen barkhad jaamac batuun waxa uu isdul taagay isla markaana hoosta ka xariiqay waxa uga qorshaysan haddii majaraha dalka ay ku guulaystaan waxbarashada xisbi ahaan annaga wax naga go'an inaanu tagno iskuullada dawladda in dadka danyarta hooyada tamaandhalayda aabbaha kuuliga ah ninka kaariyoolaha wata een awoodi karaynin in waxbarashada lacagta adag bixiyo inaanu annagu tu bilaasha oo dawladdu leedahay oo syllabuskii leh oo maxay tahay manhajkii bilaash loo siinayo oo macallimiinta maxay tahay mushaharka aanu kordhin doono siyaasaddan oo cad baanu ka leenahay annu focuskaygu waxa weeyaan danyarta iyo dadka lacagta haystaaba inay dawladnimadu si cadaalad ugu adeegto inaanu iskuullada brefatkaan aanu cadow u aragay aanu aragna muwaadiniin dalkan iyo dadkan wax gashaday oo iyaga laftirkoodana aanu qaabi doono dawladnimadeeda بدري كوسار محمود تلفزيون كسهن